halkan waxaa ka socda aroos balse maaha aroosyadii aynu naqinay muqa urta codka malabka dhaxda ogane tagay iscelin qorta canabkii cabariyahaniyo xarfiga uduga muqa urta codka malabka dhaxda ogane tagay iscelin qorta canabkii cabariyahaniyo xarfiga uduga xasan cabdi cali waa wiil Soomaaliyeed waxa uu dhiganayaa xalfadda arooskiisa balse xalfadda maanta ma aha xalfaddii Soomaalida South Africa ay hore u dhigan jireen waxa uu sheegay in xalfaddani maanta uu dhigay xaaskiisa ay tahay xalfad uu muddo ku taameeyay waxaana noo sheegay in dareenkiisu aad u faraxsan yahay maadaama uu u rumeeyay riyada xaaskiisa I like this dress. qaarkood waa ay la yaaban yihiin arooskan cajiibka ee hore aan uga dhicin dalkan South Africa ama Soomaali iyo South African ay isku guursadaan halkan xasan waxa uu noo sheegay inuu ku faraxsan yahay guurka gabadhani oo lagu magacaabo imika Faaduma waxa uu sheegay in gabadhani markii hore ay haysatay diinta Kirishtanka balse ay qaadatay diinta Muslimka markii ay isguursadeen daawadayaal halkan aan iminka ku suganahay waa goobtii arooska uu ka dhacay waxayna ka dhacday qaybtan iga dambaysa waana arin ugub ku ah Soomaalida South Africa sheekada ayaa waxa xiiso u yeelaya markii uu guursaday ama uu mehersaday xasan gabadhani waxa ay ahayd 2010 waxayna u haysaa 2 caruur ah oo gabadhiisa curadda ay jirto 9 sano dadka qaar ayaa waxay qabaan in guurkani uu yahay guur qaldan magacayga waa Nuur Yuusuf Cali ku magac dheer abwaan Nuur Guray run ahaantii waxaan rabaa inaan iraahdo gabadha ajnabiga ugu fiican waxa ka fiican gabadha Soomaaliyeed tan ugu liidan waan guursaday qof ajnabi baan guursaday 2 wiil ba ii dhashay waxaan ula jeedaa sokorta markaad hanbato way macaan tahay laakiin macaanka aad hanbato ku egyaa asaga laakiin timirta marka cunto marba mar ka sii dambeeso ayuu sii macaya waxaan ka wadaa dhaqanka ajnabiga ah ee guursato waa hamta hore laakiin raasimaalkiisa dambe ama mustaqbalkiisa dambe awlaadaada taada iyo dhaqan bulsho dhaqaale wax walbaba waxa weeyaan waxaad noqonaysaa gabaabs bismillaahir rahmaanir rahiim saamiya daahir salaam baa leedahay marka waxaan ka hadlayaa guurka qofka ajnabiga ah guurka qofka wadankaaga ah markasta waxa fiican gabadha wadankaaga inaad guursatid laakiin qofka dooqiisa waa in la ixtiraamo qof walba dooq buu leeyahay وطاي داود يلوحا هلكن لا تاغناي حسن عبد علي oo ah ninka halkan ku guursaday arooska aha wuxuu guursaday gabar South African balse asalkeedu ka soo jeedo dalkaas Malawi xasan waxaad nala wadaagtaa dareenkaaga iyo farxadaada maanta waa sidee horta alxamdulillah aad ayaan faraxsanahay waayo gabadha xaaskeyga waxay jecleed mar walba inaan u sameeyo aroos maadaama today iyadana si fiican u faraxsantahay sidoo kale waan faraxsanahay okay xasan arintan laakiin arin hore Soomaalida South Africa ay u sameeyeen ma sax marka maxaa kugu dhaliyay ama maxaa kugu abuuray in arintan sameeyso oo ku dhiirato waliba iyadoo rag badan xaasas South African ay qabaan balse ay ku dhiiran laayihiin qof islaam ma ahayn islaamnimada rabtay kadib marka islaamka aan baray waxay dhahdeen walaal aniga waxaan rabaa inaan nin guursado maadaama ay weydiistay inay guur rabto waan isnikaxsanay waan isguursanay kadib in badan isla joognay wiil iyo gabar ay haysaa iyadoo intaas aan isla joognay haddana waxaan ugu soo baraarujiyay inaan isnikaxsan inaan aroos dhigano mar kale waalidkeeda iyo aniga oo iyada xaggeeda dareen zaid ka imaaday oo jeclaatay inay samaysato aroos oo mar walba qalbigeeda ku jiray goormaan aroos la dhigi doonaa wallaahi dadka badanaa way is weydiiyaan maxaad u guursan weysay gabar Soomaali maadaama aad Soomaali tahay taasi waa arrin muhiim ah balse ujeedada ma ahan labada qof oo isfahmay oo guur xalaal isku qabo in qalbigooda la kala dilo
fadooliyo faaqidaad madaaye inti kulan faqaan way farahana la soo geliyey waxaan faa'iido jirin. dad badan oo Soomaali ayaa waxa ay u arkaan South Africaanka inay yihiin dad cunsuriyiin ah oo aan waxba lala wadaagi karin. haddaba Xasan ayaa waxaan weydiiyey qaabkii ay u soo dhaweeyeen markii uu gabadha ka doontay. marka hore dadkan gabadha xaaskeeda ka soo jeedo si wanaagsan ay ii qaabileen, si wanaagsan ay ii soo dhaweeyeen, waan ugu farxeen waayo dhaqankii iyo Afrika ka dhaxeeyay oo laboolii la dhiibayay waa la siiyay, arooskani hadda waa loo dhigay. sidaas zaid ugu faraxsan yihiin oo hadda afkooda ka muujinayeen maanta inay dhaheen Tanzania meesha ku dhamaan rabaa waayo maadaama aan isdhaxgalowno oo dhaxgalkii iyo gabadhayna nin Soomaali oo guursaday Tanzania meesha ka bixi doonaa. saasay hada qabsigooda ahaa. ma aanan helin wax cilad ama dhibaato aan kala kulmay, si wanaagsan ayay isu dhaweeyeen marka ugu horeysay ilaa hadda maanta ugu dambayso waynu ku faraxsan yihiin. Abdixakiin Ibraahin, magaalada Bulugwani, dalkani Koonfur Afrika.